waa Maxamed Cadaawe soo saaraha neefsiyaha oo ah shayga loogu baahida badan yahay maanta. Waxa uu booqanayaa wasaaradda warfaafinta oo uu dhiirigelin ka helay kadib markii aan daha qaadnay sheekadiisa 2 maalin ka hor. Cusmaan Abukur Dube wasiirka warfaafinta ayaa xafiiskiisa ku qaabilay hal abuuraha la holin waayay ee uu istaagay samaynta mishiinka loogu baahida badan yahay waqtigan karoonuhu laba kacleynta ku jiro. Maxamed Cadaawe oo ay weheliyaan Cabdiweli Maxamuud Cilmi iyo Mahad Dheere Xaashi ayaa kulan dhiirigelin iyo guubaaba waxa uu qabtay wasiir Dube oo qiray in hal abuurka Maxamed aan looga faa'iideysan sidii loo baahnaa balse uu garab istaag ka helayo dowladda Soomaaliya si uga qayb qaato badbaadinta dadka COVID-19 uu soo ritay. Maxamed waa dhalinyaro waxa ku jira hal abuur, waxa ku jira damqasho, waxa ku jira energy, waxa ku jira aragti inuu isagu baahida dalkiisa uu ka turjumo iyo waxa dadkiisu u baahan yahay. intaasi waa waxa muhiim ah runtii inaan xusno. waxaan rabnaa inaan dhiirigelino xukuumad ahaan aanu sheegno inaanu qirno hal abuurkiisa iyo fikirkiisa. wasiir Dube ayaa sheegay in hal abuurka Maxamed Cadaawe uu dalka ka suura gelin karo isku filnaansho dhanka mishiinada neefta u qaybiya dadka karoonuhu uu soo rito. waxaan rabaa 2 qolo inaan baaqu diro, ganacsatada inaan baaqu diro inay hal abuurkan saacidaan. mar labaadkan waxaan rabaa inaan jaamacadaha baaqu diro gaar ahaan qolooyinka ka shaqeeya engineering iyo mechanical engineering. annaguna xukuumad ahaan dadaalkayaga waa ku daraynaa, waana soo dhaweynaynaa, waana gacan qabanaynaa. waxaan u baahanahay waxaan aaminsanahay Soomaalidu inay hal abuur badan leedahay, dad hibo leh oo hal abuur leh inagu fara badan yihiin, laakiin millions dadkeena ka mid malaayiin waxay la dhintaan hibada iyo hal abuurka. Maxamed Cadaawe oo ka mahad celiyay dhiirigelinta wasiirka warfaafinta ayaa sheegay in soo saaridda agabkan ay ku dhalisay xawliga uu ku faafayo fayrasku iyo bukaanada u dhimanaya oo is soo taraya. waa mahadsanyahay wasiir Dube iyo wasaaradda maxaa la yiraahdaa warfaafinta iyo dhaqanka dalxiiska. waxaan mahad celinayaa bahda saxaafadda oo ugu horeeyay saaxiibka Tarsan iyo dhalinyarada kale saxafiyiinta ee gartay in maxaa lahaa arintan banaanka loo soo bixiyo. waxaan diyaar u ahaa inaan u shaqeeyo maxaa la yiraahdaa dadkayga iyo dalkayga. waxaan diyaar u ahaa inaan badbaadiyo ummadayda Soomaaliyeed. waxaana diyaar u noqonaynaa xilli walba waajibaadka inaan gudano oo ah in qof la badbaadiyo. waa waxa ugu muhiimsan adduun maxaa la yiraahdaa aad ku joogi karto aakhiran ilaa agtiisa wax fiican ugu helay. isagoo ka duulaya dhiirigelinta hibada iyo hal abuurka Maxamed Cadaawe soo saaraha neef caawiyaal ama neef sameeyaal la dagaalamaya xanuunka coronavirus oo Soomaaliya si weyn u saameeyay ayuu wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cusmaan Abukur Dube ku qaabilay halkan oo ah daarta wasaaradda warfaafinta ee magaalada Muqdisho, isagoo u sheegay inuu muhiim u yahay dalka xilligan isla markaana la doonayo in garab istaag loo muujiyo. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka, Muqdisho.